maalinka qiyaamaha banka qiyaama khalaa'iqda marka la soo saarayana xadiis waa kii nabigeenu lahaa calayhi salaatu wasalaam shakhsiga ugu horreeya banka qiyaama marka dhulka laga soo saara bani aadamka shakhsiga ugu horreeya dharka loo xidhi doono waa ibraahim alkhaliil calayhi salaam. maxaa nebi ibraahim loogu xidhay dharka khalqiga banka qiyaamo taagan dad hurti? waxay yidhahdeen culammadu maalintii dabka loo shiday dabka lagu tuurayey ayay qoomkiisu dharka ka saareen baa la yidhi. maadaama maalinkaa ilaahay dartii dharka looga saaray waxa ilaahay ugu abaalguday halkaana in banka qiyaame khalqigoo dhan oo wada qaawan oo wada qatan dharka dhar ugu qurux badan ibraahim alkhaliil isagoo loo soo xidho. laanna shayga uu nebi ibraahim u hurayey ayaa qaali ahaay oo qiimo badnaa waa diin. daedna nebigeennu calayhi salatu wasalaam uu dhaafay ibraahim sidrati lmuntaha rabbigii buu nebigu la soo munaajooday. daedna markaasaa ilaahay soo siiyey salaadaha 5 salaadood markii hore 50 markii dambena 5 baa loo gaarsiiyo la yidhi salaadu waa 5 waqti weeyaan laakiin ajarku waa 50kii salaadood ee ummadaada u gee baa lagu yidhi rasuulkeenna. axkaamta kale oo dhan nebiga dhulkaa loogu keenayey soonka dhulkaa loogu keenay zakada dhulkaa loogu keenay xajka dhulkaa loogu keenay jihaadka dhulkaa loogu keenay axkaamta kale oo dhan nebiga dhulkaa loogu keenay laakiin salaada nebi maxamed isagaa loo yeedho la yidhi adaan kuusoo dhiibanaya hadiyaddaas. marka salaadu waa udub dhaxaadka diinteena islaamka. salaadu diinta islaamka waxay u taagan tahay halka kurka maaragtaana bini aadamku u taagan yahay. laa salaata liman laa tuhuura lahu qofka hadduu soo dahaaro qaadan salaad male buu nebigu yidhi. walaa diina liman laa salaata lahu qofka hadduuna salaad lahayna diin male. walaa iimaana liman laa amaanata lahu qofka hadduu amaano lahayna iimaan male buu rasuulku yidhi. hadduu amaano lahayn iimaan male. waa inuu qofku amaano yeeshaa amaanatu diin iyo amaanatu dunya labadaba. inamaa mawdicu salaati liddiini ka mawdici الraasi cala اljasad macna alxadiid. salaadu diinta islaamka waxay ugu jirtaa buu nebigu yidhi halka kurka sare bini aadamka ugu jiro. meesha qofka islaamnimadiisu ay ka daahirtaana waa salaada weeyaan. salaada wasnigaale nebigeenna isagaa loo soo dhiibay. markaasaa siirada waxaa ku taalla saxaabada markii salaada loo keenay waxay idhahdeen xaajaadkaygii o dhan maanta annaga noo qumeen haddee toole. salaada intaanan lagu soo farad yeelin muraad kastay leeyihiin nebiga u sheegan jireen baa la yidhi. laakiin maalintii salaada loo keenay waxay idhahdeen alaan qudiyat xawaa'ijuna annaka xaajaadkayagii khalaas ilaahay waa noo qumiyay yidhahdeen haddee toole. haddii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam micraaj loo qaaday baa la yidhi muslimka micraajkiisuna waa salaada weeyaan. halka qofka muslimku ilaahay uu kaga xidhmo waa salaada weeyaan. haddaad aragto qof muslim oo bilaa salaada waa qof ilaahay xidhiir aan la lahayn bay ka dhigan tahay. xidhiirka hadduu ka maqan yahay qofka muslimka noloshiisana noloshiisoo dhan waxba ma haystay ka dhigan tahay. wax weyn baa ka maqan. xidhiirka u dhaxeeya addoonka ilaahay waa salaada. salaadu waa micraajka qofka muuminka. salaada waxa weeyaan waa halka qofka qalbiga muuminka ku raaxaysto. wajucilat quratu cayni fi salaa baa nebigu yidhi meesha indhahayga iyo qalbigaygu ku raaxaysto waa salaada buu rasuulku yidhi. salaada marka la aqiimayana nebigu wuxuu odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal yaa bilaal kacu salaada inoogu raaxee. fanuxaafid cala asalawaat salaadaan xafidaynaa. hadday salaadu inoo hagaagta bay culimmadu leeyihiin diinta inta kale o dhanna waa inoo hagaagi. lidaalika zamankii dadku wanaagsanaayeen salaada ayaa ummadda loo hagaajin jiray. salaadu waa halka qofku ilaahay kaga xidhmo weeyaan. qaar waxay ku dadaalayeen salaada inay helaan ruuxdeeda iyo dhadhankeega 20 sano usoo daalayeen.
ونصلي صلاة ذات الخشوع والخضوع صلاة برينا أبدكنا دمركنا صلاة برينا أهلنا صلاة برينا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى صلاة مركي النبي قال أمري وحل يري صلاة أمر أهلنا وقرمة ومركي النبي أقل دي سينتو مري وحل قوتو نبي وأقل لك سوى يبيم ويانه قوت اليوم ونبي كواي ريريسي سقو مرغيس ابو مسكيت كسو نقدا لا يري قران كان marka ilaahay ku soo dajiyay salaada nabiga waxa lagu leeyahay halkaaga salaada amar salaad waa maxay waa maftaah arsaaqada lagu helo weeyaan noloshaada hadda doon inay ku fududaato salaada wanaadke arsaaqadu xiriiray ka baxda hadda doonaysa salaada ku dadaal صلاة النبي قمت وتوصي صحابي مرة اللي مركو النبي زمن قيسي وقف سوء إسلامه لما الشيء النبي وقف كبراي سدو قف لها يقول حلم لها يسدو قف لها يبري لها صلاة يدعاء النبي قبراي صحابة ديس صلاة تكو مساجد كنتو دحفريستو سدوتو كان يا النبي يقول جري صلي فإنك لم تصلي وركالي تكو ما تكن كل على صلاة هذا نمر لبعض وكل شيء صلاة بلا طمأنينة يتكني هذا النبي يقول ما تكن كل علي هذا كل علي بوكي إلى الصحابي قيل هذا مركي الدنبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ما قال صلاة يبر هذا ده النبي يقول صلاة دي ببرئ كوكلا النبي يقول يمدو يدي صلاة مركان تكنا يا رب جاي محان ويدي استقبلي الشيخ سن الله وبريا مركان النبي يقول وحاتر هذا قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني إله ودم بجاي قداف أو إيه نحريس أو إيه هنوني أو إيه أرزاق أرزاق هذا النبي يقول دم بيسي إنك دعاءنا مع ما تورث يا وحن عنا وهري الدنيا لا وهريس لأن قلبك وحى كوين آيات دعاء ذو بدنيسا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماشوا النبي كعباريك وعاتر على مرقة دعاء سنة يسد إله دنبك قداف إله إن حريس إله يهنوني إله يرزاق دنبك أنقل إنه ayaa khayr badan iyo nicmad badan oo xagga alla nooga iman lahayd naga xanibe ogaada laana dunuubtu markay badato ay badato waxay noqotaa xujub innaka iyo naxariista ilaahay bana kala qarisaa baa leeyahay dunuubtu marka dambe lidaalika dambi dhaafuu nabigu yidhi horta dambi ilaahay weydiiso inuu dembigaaga dhaafo naxariisna ilaahay weydiiso hidaaye ilaahay weydiiso dana arsaaqada ilaahay weydiiso cali iyo faatimo nabigu intuu kiciyo habeenkiiba oran jiray ميانا تكني كعو تكدا صلاة الليل قيس كيس إلهي بو كل حداي صحابة إلهي بو كل حداي فقراء إلهي بو كل حداي مسكيتكو صوق لي لأنه حارك دعاء سنة يولا إله الصبر يسي صبر مرقاب النبي يقول كم بلايا إلهي ويدي ستي إلهي عافية ويدي سبو كي هذا نقول دافع كوكالو أركو دعاء سنة يولا اللهم إني أسألك تمام النعمة مرقاب النبي يقول ما هي تمام النعمة مرقاب يا رسول الله ما يعيشك تمام النعمة وحويان إلهي إنه نار كابت باديو جنن إلهي كقود دافع هذا نقول دافع كوكلا دعاء سنة يواركولي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام مرقاب النبي يقول وردعاء هذا باهد هذا إلهي وشيغو البابين سبضنا بعدين الغفرين سل حاجتك أبو كيل قد استجيبت دعاؤك حاجة هذا إلهي وشيغو والشيغو باهد هذا دعاء أتكو دعاء سنيسو إيا كلمة أتكو فرفرتي البابين سبضنا بيكون فرتي برسولكم يا ذا الجلال والإكرام ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام دعاء أعمال وحاو نبيغو أمدا أوسيي وفكست هلكو جوغو إلهي وكذا حرمي كراي يسوون عنا وباهم با دعو
يا حي يا قيوم كدو عيش، يا أرحم الراحمين كدو عيش، حسبي الله ونعم الوكيل كدو عيش، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كدو عيش. أدعيدا سواتي أنبيادو أي مشاكل كلا صدر سو النبي والبوك قبح يا قراك اللي نقول شاكي افتحوا الفرج. يونس عليه السلام في بطن الحوت في 3 ظلمات وحي لهيك قصو صار دعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم عليه السلام دعادي إلهي وضبك كقبت باديي حسبي الله ونعم الوكيل. غزوة بدر وغزوة فيصل وعيد عليه وإياه حقي باطل قال له كلا صاري دعادي نبي محمد وكنت عيساني يا حي يا قيوم بيهيد. أيوب عليه السلام حنونك 18 سنة هيي وحاو كنت كقبحي يا أرحم الراحمين بو كقبحي يسونا. أكبر سبب أي قرآن كل نوع شيء يا لكن عنده قرآن كاللغوار كي الله ينسيه. أكبر سبب دعاء أنبياء صلاة قيام الليل قرآن كريم إنك لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. سورة البقرة خواتم تيدا هي سورة الفاتحة مرق النبي الله سودجي وعلقوا يري أبشر بنورين أوتيتهما لبدا النور بملكا كوسدا يا بشارة يسو لبدا سورة آمن الرسول ملك بكلي الله سودي بو أرلا لك يعني مالين تاس ورهدية دا انتين لأكتها ولا ليال ملك الباب السماد ولا ده هاي وقار الله فريب رسولك ملك با أرلا ما أنت لو سودي بو لو سود جيي ملك ما تكور الله ده ما يمن بالي ملك يبا نبي السلامي أبشر بنورين أوتيتهما لما نور إلهي كوكو ديقى بشارة يسو حرف كمد إلهي كما ويدستد مراد كاقا إلا وحال خير إلهي أتكبر ذي إلهي واكو السيايبا لقيولي آمن الرسول يو ها سورة الفاتحة أتقراك وانا خريعنا لكن يقينتي ما ضعيف ها ضعيف ها ضعيف يقين كمزور يقين تاني ما ضعيفة ما أنت إدها وولادة يقول القرآن يقول أخري يقول هل القرآن صار يقول مركز الشيخ والله يقول قارئها مركز كو أخري مركز سيتا هاي نكي ها مركز محاكم هلا وحنا القرآن كاقوا أيها سيد يقول هذيك لا إله إلا الله شيخ إذا حناقو يري ما قرآن كان كوكو آخرنا يا كاغا سيدري ها هذا أنا وحر مرقات كعيا إن الظالمين تكملتها يقول هذا يقول ظالم باتها لأن إلهي بيري وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة مربع هذا ترى القرآن كما يقول سيدري ظالم باتها يقول ظالم سلام أبو هذا ما يلقى القرآن كما نخرينا مدارس وانو بدن إيسا مساجد وعمر ما إيسا لكن خيرك ويريح مسوي بدن إن شاء الله وزيادة يا هذا إن شاء الله هذا قرآنك كو خسارة مين إله يدنك خاصة بلد كان جون وبلد القرآن وبلد عجيبة جماعة عدد مركيني مدار رجبوت وحيد هذا سيدا مقدشو وإن حافظ المدارس كفر حفظ القرآن قرآن كاس واحد بدن بإلهي نقيل اليوم هذا بركة هكو الله برينو أدو قرآن هيستسيدو عبصور مركز سيد إلهي غيرك وقع عبصور صاحب القرآن بابته ودوا قرآن هدو قرآن كو يقين لا يهي أدوك ودنبوك لجاه قرآن صحابي جماعة دوتي reer gaalay u yimaadeen martigelin weydiisteen martiqaadkii baa loo diiday reerka odaygoogi baa habeenkii qaniin ayaa qaniinay oo waxbaa qaniinay markaasaa cilaaj loo raadiyay dawo waa la waayay cilaajkiisii markaa bay yidhahdeen dadkii tuulada deganaa
nimankii xalay martiqaadka aan u diidnay waa kuwa bannaankaa degane iyo kabeloo dawal laga hel ha loo tago amiirkii jamaacadda markii la yidhi odaygii baa wax naga cune uu dhimanayaa noo daweeyo dawo ma haysaan haa dawo waan haynaa buu yidhi dawo waan haynaa laakiin waa inaad ujuuro bixisaan buu yidhi saxaabadii way is eegeen waxaad haysaa markaasuu yidhi suuratu alfaatixan hayaa buu yidhi lqur'aan baan hayaa buu yidhi dee ma lacag baad ku qaadanaysaa kharash haa waan ku qaadanaynaa soo iyaka waa martiqaadkii noomay diidin haa qur'aankaasi waa ku dawaynaynaa buu yidhi ilaha idinkii markaasaa loo keenay way ku tufeen qur-aankii waa kacay ninkii uu bogsaday goosmo dhan oo adhiyaa la siiyey markaabay isku qabteen way bannaan tahay ma bannaano waa bannaan tahay ma bannaano way soo kaxeeyeen madiinatalmunawara yimaadeen markaabay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markaabuu nebigu waa inii xalaal weeyaane anigana qaybtayda iga siiya buu rasuulku yidhi qur-aanku waa dawo ka lagu akrinaya laga yaabaa inuu yaqiinsanayn qur-aanka isagu laakiin kee yaqiinsanaa war kee baa yaqiinsanaa kan akrinaya qur-aanka yaqiinsanaa inuu yahay kalaamullah dawo inuu yahay qur-aanku hadduu qur-aanku yaqiintiisii helo kalsooni hadduu qur-aanku helo bay culimmadu leeyihiin waxaa adduunka yaalloo dhan waxba qur-aanku u arki maayo hal aayadoo qur-aana adduunyada waxa jiro dhan ku filan bay culimmadu leeyihiin kal hore markii halkan aan ijtimaaca kal hore xanuunkan hargebkana la sheegayey ayaan sheekh culamada magaalada kamid a buuqanay markaasuu waxaa la sheegayo uma nadara ku filan buu yidhi uma nadara intaasaabaa ku filan buu yidhi subxaana allah yacni kalsoonida iyo yaqiinta uu hadalkaa u lahaa annagii bayna saamaysaba aayadda qur-aanku maalintaas kalsoonida uu u yidhi hadalkaas si dhab yar welibana waxaa la sheegayo aayaddaa yar baaba ku filan buuha waxa dhanba kala tuuraysa buu ku leeyahay ilaahay kalsoonida haynoo soo cesho fa ducadaas qur'aankii baan haynaa ducadii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysanayey ayaa inoo qoran laakiin yaqiin baa loo baahan yahay maanta yaqiin cilmigu yaqiin buu u baahan yahay cilmi qur'aanku yaqiin buu u baahan yahay waa inaan baranaa qur-aanka oon ubadkeenna qur-aanka barnaa oon guryaheenna qur-aanka ku akrinaa aayadaha suuratulbaqara ugu dambeeya 3 habeenoo isku daba xigta buu nebigu yidhi aqal laguma dhex akriyo haddii lagu akriyo aqalkaa shaydaan ma soo galo buu rasuulku yidhi qur-aanku shaydaanku aqalka ka saaraa qur-aanku dadku noolaynaya mujtamacu qur-aanku noolaynaya aqalku noolaynaya saa darteed waa inaan noqonaa dad qur'aaniyiina oo qur-aanka ilaahay ku kalsoon oo qur-aanka ku dhaqmaya wixii qur-aankuna amray wanaagana ha la imanno waxa uu qur-aanku naga reebena ha ka reebtoonno wixii qur-aanku xalaaleeyey ma aamana bilqur'aan baa nebigu qur-aanka ma aaminin ma rumayn kee wixii qur-aanku xallile ninka aanan xalaal u arkin wuxuu qur-aanku xarimay ninka aan xaaraan u arkinna qur-aanka ma aaminin buu rasuulku yidhi qur-aanku shareecadda waxa waa xalaal hadday tidhahdo waa in la raaco walow khilaaf alcaqli shayga ha noqdo waxaas waa xaaraan sharcigaa xarimay ka dheerow dariiqaas waa xaq ilaahay buu kuu dhaweynayaa raac dariiqaas waa baatil ilaahay buu kaa dheeraynayaa ka dheerow waxaasi waa wanaago ilaahay baa kugu jeclaanaya samee waxaasi waa sharo ilaahay baad kaga dheeranaysaa ka dheerow saxaabadu macaasida waxay uga baqayeen sida inaku dabka holcaya aan uga baqno dabka holcaya si aad uga cabsatid si lamida ayay macaasida teeda yar uga baqayeen asxaabta rasuulku leanna macsiyadda waxay u arkaan iyaku inay ku dhex jirto ilaahay cadhadiisii lidaalika qur-aankaasi wuxuu ina amrayaa markaa inaan khalqiga ilaahay adduunya dusheeda inagula nool aan kula dhaqana maartaan dhaqan wanaagsan akhlaaq wanaagsan xusnu lkhuluq waa halka diinta islaamka ugu sarraysay dadku ay soo eegtaan waa kii nabigeennu lahaa bucithtu liutamima makaarima alakhlaaq aniga adduunka waxaa la ii keenay buu nebigu yidhi akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dadka noloshooda aan ku dhammaystiro akhlaaq wanaagsan qofka muslimka muuminka waa inuu ahaadaa qof akhlaaq wanaagsan oo akhlaaqdiisu ay ummadda diinta islaamka ay jeclaysiiso madiinat almunawara markuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam reer madiina nebigu wax kale uma sheegin
xuquuqda ay muslimiintu dhexdooda isku leeyihiin ayuu hadalkiisa ka bilaabay markuu masjidka dhex fadhiistay. yaa ayuha annaas afshu salaam waatcimu alطacaam wasilu alarxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam. yaa ayuha annaasu dadow dhexdiinna salaanta faafiya buu nebigu yidhi, qaraabadana xiriiriya, masaakiintana quudiyo cuntaysiiya, habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo tukada, jannada rabbigiin nabad baad ku galaysaana buu rasuulku yidhi. xadiistaasi waa xadiistii markuu madiinat almunawara uu nebigu yimiday bii'adda islaamiga, dowla islaamiya markuu nebigu madiine ilaahay uu ka siiyey mujtamac, waa xaadiistii nebigu uga dhigay dowladdiisu inay ku shaqayso. salaanta faafiya macnaheedu waa maxay? salaantu waa duco, salaantu waa maxabo. haddaad dadka muslimiinta salaanta la dhex martid ummadoo dhan baa ku jeclaan. waa duco, adaa ummaddii u ducaynaya, ayakuna ducay kugu jawaabayaan. 100 qof baad u ducaysay, 100 qof baa adigana kuu soo ducaysay. mid laga yaabaa weli ilaahaya in ducadiisa lagu aqbalo. limaada? assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh. assalaamu calaykum markaad leedahay, assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh markaad leedahay, nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay dushaada ha ahaadaan. adiga salaantaad fidinayso waa sunne, laakiin jawaabta walaalka uu ku siinaya waa waajib weeyaan. in la isgacan qaadana waa sunne. haddaad gacanqaadkii aad lagaa waswaasiyey sida yahuuddu ay samaynaysa ha samayno, sidan ha odhanine salaamu calaykum iska dheh. waad ma fahamteen? ya sida dadka kale ay samaynayaan may waxaad tidhahdaa salaamu calaykum waraxmatullah, leanna sidaa nebiga way ka sugnaatay sal alla alay wasalam. soo mahay way ka sugnaatay nebigeenna inuu salaanta afkana uu ka qaaday, gacantana uu kor u taagu intaba israaciyey. in yar nolosheenna haddaan nebi maxamed ku khilaafno ogaada ilaahay gargaarkiisu ummadda u ka rafacmaya. maalinta ummaddani sunnaha nebiga ay cagba cag u saartana waxaad ogaataa nusradda ilaahay baa soo dhowaanaysa. khilaafa sunna nusraddaa rafacmaysa. sidii ghaswatu uxud, jamaacuu nebigu soo qaaday, jabal rumaad buu nebigu dul joojiyey. halkaa jooga buu yidhi, annagaa dagaalka galayna macrakadda, inagu dhabarjebinta naga ilaaliya, halkaa jooga, ha soo dhaadhicina. dagaalkii markuu dhacay ayaa gaaladii markiiba la jebiyey. jamaacaddii meesha uu nebigu dhigay waa iskhilaaftay. waxay isku khilaafeen baa la yidhi, damac baa galay qaarkood. damac waxay arkeen gaalada wixii ay ka yaaceen oo la guranayo, seefihii, duruucdii, fardahoogii. markaas amiirka jamaacaddu leeyahay hadhaadhicina, halkaa joogaynu. markaasay qaar leeyihiin dagaalkii uu dhammaado waa la jebiyey gaaladii, dhadhaadhici. markaasuu hi may nebigu jooga buu leey, jooga. hay nebigu jooga wuxuu u jeeday bay leeyihiin dagaalkii uu dhammaaday, hadduu dagaal socdo waa dagaalka dhammaa khalaas. markaasuu yidhi amiirkii leey may jooga. halkiiba markaa jamaacaddii way iskhilaafeen, qaar baa soo dhaadhacay, qaarna meeshii bay ku hadheen. khaalid ibn alwaliid oo maalinta gaalada ciidanka farduulayda hor socday ayaa arkay, dhabarjebin buu ku sameeyey muslimiintii, xagga dambuu kaga yimid. intii yarada buurta ku hadhay uu ka mid ahaa cumayr binu sacad, soo mahayn? cumayr binu xamaam alansaari saxaabigii, iyo anas binu nadar, iyo cagtuu mariyey oo shahaada ilaahay ka siiyey. muslimiintii iyo khaniimadii iyo wixii laga yaacay guranaysu xagga dambe ka geliyay ciidankii. ilaa 70 saxaabada ka mid ay ku dhintaan halkaa, nebigana maalinta lagu dhaawaco, dhig lagaga daadiyo. sababtu waa maxay baa la yidhi? waa khilaaf. amarkii nebiga ayaa ragga qaarkood ijtihaadi ay u jebiyeen baa la yidhi, way la noqotay inuu sidan ahayd bay arrintu ula ekaatay, deedna nusraddii baa kor looga qaadaa la yidhi. waxaa halkaa ummadda la tusinayaa, haddaad amarka nebi maxamed aad jebisaan, walow haynila jooge, gargaarka sidii la rabo u heli maysaan. kullamaa dadku ay sunnaha nebiga ka dheeraadaan, nusradda inaga rafacmaysa, nolosheena barakaadka ka baxaya. mar kastoo muslimiintu sunnaha nebiga ay raacaan, barakaadkii raxmadda iyo nasriga ilahay baa soo dhowaanaya.
lidaalika nabigeenu calayhi salaatu wasalaam madiinat almunawara markuu yimid waxau ka bilaabuu yidhi salaanta dhexdiina faafiya asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum cabdullaahi bin cumar bnu khadaab uu xadiiska nebiga ku camal falaya ayuu odhan jiray suuqa intay magaalada madiine maraan ayuu dadka salaanta la soo dhex mari jiray nin la odhan jiray tufayl ayaa ku yidhi ibna cumar waadna soo kaxaysaa maalin walba suuqaa baadna wareejisaa badeecadna ma baayacaysid meelna fadhiisin maysid badeecadna iibsan maysid maxaad noo wareejisaa meelna fadhiisi waxna bar wuxuu yidhi innamaa naqdu min ajli asalaam salaantaa aan dadka la dhex socdaan usoo kallahnaa buu ka yidhi assalaamu calaykum baan la soo kallahaynaa salaantaan muslimiinta aan salaamayno ilaahay baa noogu dambi dhaafaya ilaahay baa noogu naxariisanaya waa waxay muslimiintu isku jeclaanayaan markaa buu nabigu leeyahay atcimu acaama dadka cuntaysiyo quudiya xadiiska ku dhaqankiisu waxa uu magaalada madiine ka baabiiyey mataqaanaa saboolnimadii xadiiska ku dhaqankiisu hadalka nebigu quwadda uu leeyahay daawo maalintii xadiiska reer madiine ay maqleen baa la yidhi magaaladii madiine qof miskiin oo saa'il oo faqiira waa laga waayey atcimu acaam dadka cuntaysiiya wasilu larxaam raximka xidhiidhiya silatu raxim haddaa qaraabada xidhiidhisid fawaa'idda silatu raximku leedahay waxaa ka mid a cimriga ilaahay kuu dheera inuu kuu barakayn man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayusaca lahu fii aaharihi falyasil raximah ninka jecel buu nebigu yidhi in arsaaqada loo waasiciyo cimrigana loo barakeeyo qaraabadiisa ha xidhiidhiya buu rasuulku yidhi xidhiidhi qaraabadaada ziyaaro salaada ku soo xidh dacwadda ku soo xidh masaajidda ku soo xidh xidhiidhi dhaqaalo ku xidhiidhi maaha akhlaaqda wanaagsan baa qaraabada lagu xidhi akhlaaqda wanaagsan lan tasicu nnaasa biamwaalikum dadka maal ku wada gaadhi maysaan buu nebigu yidhi laakiin dadka waxaa lagu deeqaayo oo lagu wada gaadhaa akhlaaqda wanaagsan iyo weji furnaanta buu rasuulku yidhi weji furan wejigaagu ha furnaado haddaad qaraabadaada xidhiidhisid labadaabaad iyuu nebigu ku ballan qaaday in arsaaqadana ilaahay ku wasicin maanta kulligeen arsaaqadda waxaan leenahay waa cidhiiri arsaaqadda waxaa cidhiiriga geliyay waa maxay nin walba wuxuu leey anuu ha noolaa dadka kale waxba igama gelin anigu aqal fiican han dhisto dadka kalena waxba igama gelin waxaan haysto anaa iskale dadka kalena hee waxba igama gelin wixii fiican anay igu fiican yihiin dadka kalena hee yeelkadood muslimku caynkaa ma aha muslimku waa inuu noqdaa qof naftiisa u nool maaha waa inuu ahdaa qof ummadda u nool ummadda wax taraaya maalka wax ku taraaya cilmiga wax ku taraaya caqliga wax ku taraaya xooggiisa wax ku taraaya dhaqaalihiisa wax ku taraaya hadduu ummadda waxtar u lahayna waa inuu ahaadaa qof sharkiisa ummadda meel kala fadhiya ilaa shariya khayrba bini aadamka waa lagu abuure khayrkaaga haddaad ummadda gaadhsiin weydo bal sharkaaga ummadda meelun kala fadhiiso silatu raxim arsaaqadana way ziyaadisaa buu nebigu leeyahay cimrigana way ku dheerayn silatu raxim waxa uu nebigu leeyahay qofka qaaticu raximka raximkiisa gooya jannada ma galo buu rasuulku yidhi qaaticu raximku janno ma galo fa qaraabadeena aan xidhiidhinaynaa haddii ilaahay dhaqaalo uuna siiyeyna dhaqaalahayna waa kaga warhaynaynaa haddii dhaqaale aan ummadda ku deeqna aanan haysanna akhlaaqda wanaagsan baan ummaddeenna ku deeqaynaa insha allah dhexda akhlaaqda wanaagsan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam qaraabadiisa cali baa ka mid a faatimaa ka mid a radia allahu canhu habeenkuu nebigu mari jiru odhan jiray kacoo tukada miyaana tukanayn wixii nebiga hadiyad loo keeno khadiijuu nebigu u diri jiray eheladeedii iyo geelooyinkeed iyo qaraabadeedii ilaa caaisha nebiga ay tidhaahdo nebi allow dee mar walba khadiijo unbaad hadal haysaaye khadiijo unbaad hadal haysaa mar walbe kaana waxaad mada dumar kaleba adduunka in lagu abuuri iyada mooyaane markaa buu nebigu uhi khadiijo ma gaadhaysid buu ka yidhi caaisha iyadaa ilaahay ubadka iga siiyey tolkaa markay i gooyeen iyadaa xidhiidhisay iyadaa xoolahayga igu bixinaysay iyadaa ubadka ilaahay iga siiyey sidaa iyo sidaasay ahayd
maalinta intii ka dambaysa caaisha waxay tidhi markaan arkay nebigu arrintaa ka xanaaqay maalinta intii ka dambaysa nebiga agtiisa khadiijo kuma hadal qaadin bay tidhi uu ka warhayay nebigu khadiijo ciddii ku tacalluqsanayd oo dhan uu nebigu xidhiidhinayay sal allahu alay wasalam akhlaaqdaa wanaagsan ee qiyamkaa wanaagsan ayay diinteennu ina amraysaa inaan noqono qof khayrkiisa ummaddu uu gaadho sharkiisuna ummadda ay ka nabad gasho waa kii nebigu saxaabada ku yidhi alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum kiina iniigu khayr badan iyo kiina iniigu shar badan ma inii kala sheegaa saxaabadu noo sheeg bay yidhahdeen ha kiina iniigu khayr badan waxa weeyaan waa ka khayrkiisana la rajeeyo sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho kiina iniigu shar badanna waa ka khayr aan laga rajaynin sharkiisana ummaddu ay ka nabadgelin khayruu leeyahay ummaddu kama rajayso sharkiisana ummaddu kama nabad gasho ka iniigu khayr badanna waa ka khayrkiisa ummaddu rajaysa mar walba waa nin khayr badan waa nin macruuf badan waa nin la isfahmi karo waa nin wixii kaa gala aad ka heli kartid waa nin maaragtaan dadnimo fiican waa nin ehel jecel waa nin ixsaan badan khayrkiisa ayaa mar walba la rajeeyaa waa nin ummadda waxtara ninkaas waa nin ninka daalimka gacanta qabta weeyaan sifaadkaasuu nebigu sheegay baan ku sifoobaynaa waxaan ku dadaalaynaa oo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah in dadka muslimiintu walaalkaa mar walba aada u ducaysaa waa ducada ugu istijaabada dhow buu nebigu yihi walaalkaa oo ku ogeyno loo duceeyo la xidhiidhiyo la ziyaarto la booqdo salaadii subax nebigu markuu ka baxay buu saxaabada ku yidhi ayaa waa bariistay isagoo sooman abubakar baa gacanta taagay ayaa waa bariistay isagoo miskiinna soo quudiya abubakar baa gacanta taagay ayaa waa bariistay isagoo aasna ka soo qayb gala abubakar baa gacanta taagay ayaa waa bariistay isagoo qof bukana u soo duceeyo soo ziyaartay abubakar baa gacanta taagay khisaalkaasi ninka u kulantaa janno gale buu rasuulku yidhi waa gallin hore oo keliya ayuu abubakar sooman yahay aasna ka soo qayb galay qof bukana u soo duceeyey miskiinna soo quudiyey khayrkay u kala tartamayeen iyagu waxaa kaloo ku dadaalanaa inaan noqono dad lilaahiyiina lilaahi waa maxay ikhlaas cibaadadaada ikhlaas salaadaada ilaahay dartii ikraamka akhlaaqdaada ilaahay dartii haddaad ummadda wax taraysa ilaahay dartii haddaad cibaadaysan ilaahay dartii u cibaadayso haddaad wax la bixi ilaahay dartii haddaad ummadda wax bari ilaahay dartii haddaad wax sheegi ilaahay dartii haddaad miskiin dhisi ilaahay dartii haddaad ummadda talo u qaban ilaahay dartii ikhlaasku waa cajiib dawla nabawiya waa seenskii nebigu ku dhisay dowladdiisii dawla nabawiya ilaahay dartii imaamku ilaahay dartii buu u tujinayey mu'adinku ilaahay dartii buu u eedaamayey caalimku ilaahay dartii buu ummadda cilmiga u baraayey mujaahidku ilaahay dartii buu maalkiisa ugu baxaayey xaakim ninka laga dhigay qaadi laga dhiga ilaahay dartii buu talada ummadda u haynaayey dariiqa ka khadmayna ilaahay dartii buu u shaqaynayey ka gaarka aya ilaahay dartii buu gaarka u qabanayey dawla nabawiya waxay ku dhisnayd ilaahay dartii anu bini aadankaan u khidmaynayaa ajarkaydana ayaan ka qaadanayaa hore ayaan ka qaadanayaa ilaahay dartii laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura faqiirku baahidiisa ilaahay maani cid kale uma sheeganayn salaaddii subax buu nebigu ka baxay masaajidku u eeg u aamus xaggaa buu eeg xaggaa buu eeg xaggaa buu eeg saxaabadu way yaabeen muxuu soo wataa aaway ninkii xalay sadaqadaystay buu yidhi ninba uu kici waayey ninkii xalay sadaqada la baxay mee xaggana leega cidba way kici wey
نيك صدقة حالي لبحي مي علبة بن زيد بس ركعوا يا رسول الله قعنتو تاقي وعنيقا صدقة الحالي لبحي ذاتك وشيك بوكيلي فقراء إخلاص فوق الزمن كايك يا رسول الله ديوان نقول دي رجلس إلى أين أولنا أمر دينتنا نبحنو أدقنا واحد نقول دي رجلس أين مال كيجي نفسه دينتا كبحنو واحد كقول راعوا عيدك كقول راعنا أنو ما هيستبون يا واحد يدي حلي إلى يوم واحد كبحو ما هيستو نبي جاينا واحد نقول قال ما هيسونا جديد يا راشل ونقول كحري وعيدك نقول در ما هيو يا رب أنا وحى صدقات كدكتون لبحون عيدك كقدر سنة يا قفلي قفكي أنا جمارك تاني قداش ده يقول حنتي أما عرض جاي مالك قدعي أما الظلمي أما دبي جيستي إلهه درتابا نعفيه إلهه عافس كصدقة الله أقبل يقول دربان يقول مركب النبي يقول أبشر بشارة يسوي كيدي صدقة الله أقبل يقول در يقول حالته ولا دعاء دي إلهه وكا أقبل إخلاص وهاي هايين دد إلهي كحرا بس عبادة كلمة ما إخلاص حتى كخدمين إخلاص بي أيوه خدمين أمد إلى درت بقول خدمين أي أبا عبيد وعمر در مصر وكسر نقد برقص العكا دبدر العكتي باللوك يعني أبا عبيدة وصون قال عمر العكتن وما حيب ولادي صدرت وهذه ما مهمة مصر نوقع سوق قبتي ما وعرض ما هذاك هو شغين يعني أمد دانو خدمين أي أجر كيجنا إلهي ما كقادنا يا ابني لعقتنا قادوا بيت المال كوعلي بوكيلي أبي بكر الصديق مالك الثلاثة أمد اللودي بي مرضي سينتو قاتو سوق أو دقاق سوق إنه عيال كيسو صبايع مشتري سوق وكوي بيجري نركب الليل عمر بن الخطاب بعد أبو بكر حقيقة جيسا وعدوان صوير حق سنة وعد ما هلي لسه هديته له ها ثلاثة أمة دورنا ما مدح الله قصاري هاي مسكيت النبي فريسو هاي أمة وفود باكو إيمان دونتا أمة دي عيدمات كلا دري دونتا أمة دين تبري دونتا وفود إيمان إنساف هذه كان ربنا يكوي مادام بركة هالك أفرد بوكيو عمر رير كيجي أبد كيجينا أنا كأو سورين إني أكادي بدر هالكان لكن هذا سوق يباع مشتري ديته له ما حد ليس ما شوريسان معاكو شوريسان وحنكو شوريني reerkaaga masaariiftooda inaan baytalmaalka ka bixino adiga miya halka fadhiyo خلاص maalintu Abu Bakar uu godka galay ee la aasay inankiisii Cabdiraxmaan baa baytalmaalka lacag ku soo celiyay Cabdiraxmaan bin Auf oo khasnajiga haba ku yiri adeer Cabdiraxmaan oo lacagtan halkaad ku wadaa wuxuu aabba Allah u naxariistaa baa igula dardaarmo yiri waxantiya dhul baan meesha ku leeyahay iibi lacagta ka soo baxda meeshaas labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka masaariiftan ka qaatay intaasay noqotay igaga celi buu ka yidhi ikhlaas waa kaas waxaa la baray oo lagu tarbiyadeeyay iyaka ummadda adigu wax u tar ummadda wax gasho laakiin ummadda khidmadeeda adu dheefa ka sugin كفائدة سماها هذا أمده وفائدة دولة نبوية أساس كاسة كود سنيد إلى حيدرتي نندم نبي قوتنا ندريا مال كيسي نفتي سوق بحيا قارب لي عقبو مال كيسي نفتي سوق قبنايا عثمان بن عفان بنبي قاعد فديا ماركت تبوك الله بحي صدق كون يرعيدكم طبعا كن أونن سايدو داني غادي بيه بوكيدي هكا ولولين طبعا كن اونن مددا اي مقيهين السفر كتبوك كن مقيهين دقالهوغا يا ديبي عثمان بن عفان قاديد كيفولين اسغا كيني راشن كيعونين اسغا سو دياريي نيك عيدنكا سبوتيينا اقلكيسا ما فدييه بل جماعه النبي والله سعوده والله سعوده حدنا
إنك تجارتنا إمك وحا أدبير إن المسكين أي دسان مساينا أفرد إله درت وبحان فرمت كاو دبير مساجد بانسينا يلعقوا درسو يا أفرد والجماعات دار راع متكاو دبير فرمت كاو دبير شايك يلعقوا درسا ودبير صوما شيخ إلياس الله ونعرسته وحيري إخلاص كاي سقوا مدى برايا وحيري عمل كان تبليغا أصوشي سوحا كامل بويري فقير كان وحا لعرنا يا مال كاغا دين تكبحي وفقير مركز الله درتي أبحيسو لعاق عدوغو التصوشة قيسة الله كالا يو كبح تاجر كان وحا لنا يا عدوغونا وقت كاغا الله درتي كبحي فقير كاينو بحيا محاكو هذاك تاجر كاينو ديبانا محاكو هذاك وبالعكس كالوريق ويا المركز تاجر كوحا لنا يا هاي مال كاغا أنكو أمباهنين مال كاغا دعوته أمباهنو مال كاغا دينته أمباهنو لكن مال كاغا دينته أباهن وقت كاغا أي دينته أنا دينته أباهن دينته أديك كوما باهنو فهمت ما أنت إنك قلت وحا كمدا عالمكي علماء قاروح واركان دينته إن علمك أباهن تعالى تاجركي قاروح واركان تجارة قاركود إني دعوته دغالوغا u baahan tahay may sida maaha taajirku tijaaradiisa isaguba isaga dacwada u baahan caalimkii cilmigiisu isaga dacwada u baahan faqiirka iyo maalkiisu dacwada ayaka u baahan bal dacwadu cidna uma baahno diintu iyada wax ka dhiga adigu diinta wax ka dhigi maysid maalkaagu diinta wax u tari maayo لكن دينتو ايدا مالكاغا waxu taraysa cilmiga ilaahay adiga ku baray diinta waxu tari maayo laakiin diinta markaad sideeda u dhaqanto ala cilmigaaga baa ilaahay nuur gelinaya nuur dhaqaalahaagu waxa uu yeelanaya dhaqaale qiimo lu noqonaya marka diinta aad gashato diintu aday wax ku kordhin mooyaane adu diinta waxba heen u tarimaysa ikhlaasku waa maxay saxaabada waxa uu nabigu baray kooga faqiirka kooga qaniga kooga yar iyo kooga weyn inay maalkooga iyo naftooda ay diinta ilaahay ku difaacaan ku bixiyaan markaas ummad waxa soo baxday u diyaar maal iyo naf inay diinta ilaahay ku difaacaan talo ummadkii qabtay baa kule anu taladan ummadda aan qabtay lacag ku qaadan maayo waayo lacagteeda ana iska wata هاي إلهي درتي ورمضة وشقينا يا خلاص لبس سندي لبدي مددي أبو بكر وطلب ومدة وهيي وهي واستعمالون الوصول عليه وحكا هذا معها ومدة وحكوع معها بل ومدة وحاجة قشو ومدة دس لأن الناس كي قالوا الدنيا ده أجرك إلهي وقوسين دوني عبد الرحمن بن عوف سقى صومن باعنتفي عن الله كيني والله إنه عنو اسكدي ذوي يا عبد الرحمن عم بالقول عنتنا محل عون لا لحي ولا لقي مصعب بن عمر أو يجا خير بدن بعد انتبهوا يدي ما لنتو دمنا ينا مصعب بن عمر ودنتينا مرة كفر أنا قدقنا ويني ودي مرة كفر أنا قدقنا مرة كلية إزار بانوها اللي إزار قنت حق صار مرة كسرنا اللغة مجها أيان نغنى يبنان حاجة مجها مركان كسرنا مدح أيام ماركتاني موقناي حقي مدح إنتون مرنا كسرني أيام مجيه سينا جيد إنتون سوق عنا كضبني ومصعب بن عمير ومن مصعب وأيو ومقري وياه مدينة المنورة نبي محمد وأنا سوقارن ويركي سببته النقضي إني أقل والبا أي دعوة دين الإسلام كوي بيدك مدينة المنورة ونبي وأنا سوقارن ومسين عن اللهين ومركز دعوتنا على قد السن أي مصعب بن عمير انتو بيردح فريستي كل بقفصد اللوغو كينا يي كل بقفصد وزيارنا يي أي دين تي إسلام كو أقل دي مدينة وضا قادي مركز قيس كستور ري مدينة أي بلابين قرآن كين لغو آخرية لغو دحق برطو نبي محمد ومدينة سوكارن أقل كستور ري مدينة كو يالا قرآن كين لغو دحق السنايا مقري فتن قريش انتو سن اسلامي كهرنا waxaa la oran jiray wiilka Quraysheed
wiilka quraysheed yacni waxaa laga soo qaaday quraysh nin kale oo dhallinyaraha inaysan lahayn muscab mooyaane yacni quruxdiisa iyo xaraga badnidiisa markaasay gabdhaha quraysheed odhan jireen muscab baan la soo haasaabo on la sheekaystay waa ayaam aljaahiligi zaman jaahiligi weeyaan dharka uu gashado shaam baa looga keenayay kabaha uu xidhana shaam baa hooyadii uga keeni jirtay uu islaamay raaxadii buu ka tegey dharkii iyo nolosha caynkaayan tarafkii iyo tanacumkii uu ku jiray ilaahay rasuulkiisuu ka doortay markaasay hooyadii ka daba timiday tidhi muscabow baadna cuni maayo biyana cabbi maayo hadhna istaagi maayo diinta maxamedood ka soo noqotid mooyaane cadaadaa ha ku dhinta bay tidhi hooyo macaanay buu ku yidhi baadkaagana iska cun biyahaagana iska cab hadhkaagana ku noqo oo hadhkaaga iskaga noqo 100 nafood haddaad yeelato oo midba mar halkaa ay kaaga baxdo diintan islaamku tuwa ka soo noqonaya maahina hooyo ma soo noqonaya khalaas madiinat almunawwaru nebigu markaa u diray madiinat almunawwaru nebigu u diray dharkaa ku dul googo'ay maalin maalmaha ka mid a markiu nebigu madiine soo gaadhay ee magaalada madiina muhaajiriintii ansaartii ay wada yimaadeen ayaa muscab binu cumayr oo cabaa'ad maaragtaana googo'da mara googo'an oo karkarma leh xidhan oo weliba intuu maxaa tidhahdaa baalkan suraarkan maxaa tidhahdaa lagu badhankiina uu ka go'ay qodaxna uga dhigay maaragtaana iyo qori uga dhigay badhan ayuu soo agmaray baa la yidhi markaa nebiga markaa buu nebigu lilma sii daayey sal allahu alay wasalam cali binu abi aalib baa ku yidhi yaa rasuulallah maxaa ku helood la ooyeysaa ii sheeg wuxuu yidhi alaa taraa buu yidhi cali muscab miyaanad arkayn buu ka yidhi nolosha ku nool yahay yacni tacabka ka muuqda maad arkayn faaqada baahida dharla'aanta nafaqa darrada ka muuqata waxaan xasuustay buu nebigu yidhi intuunan islaamin ka hor nicmaddii uu ku noolaa baan xasuustay iyo nolosha hadda uu ku nool yahay nolosha hadda muscab binu cumar uu ku nool yahayna ilaahay rasuulkiisaa kaga raaliya buu rasuulku yidhi yaa macshar ashabaab dhallinyaro ayaad ku dayanaysaa maanta adigu muscab binu cumayr raaxadiisii tanacumkii uu ku jiray xaragadii uu ku noolaa hooyo barwaaqaysan oo hanti oo xoolo oo ilaahay hanti uu siiyey ayaa haysatoo dhashay bay ahayd noloshii caynkaaya intuu ka yimiday ayuu wuxuu doortay nolosha inuu ku noolaado dhar la'aan hoy la'aan cunto la'aan markaas waxaa ka muuqata jirkiisa mujaahada ka muuqata mujaahado ayaa ka muuqata iyo cadamu tacayush markaa buu nebigu leeyahay nolosha uu ku jira hadda ma u jeedaan haa ilaahay rasuulkiisaa kaga raalliya buu ka yidhi inagana maanta dhallinyaradayna ayaa ku dayanayaan ayaad imaam ka dhigato ku daba dayanaysaa siaad u socotaa fii ghaswati uxud bay ahayd ayuu nebigu seef buu soo qaaday seeftaa ayaa qaadan oo iga qaadan buu nebigu yidhi saxaabadu kulligood gacmahay soo wada fiiqeen sidaas markaa buu nebigu yidhi man yaakuduhu bixaqiha ayaa seeftaa intuu qaata xaqeeda marin markaasay saxaabadu yaabeen gacmihii baa la celiyey dib abu dujaana intuu soo kacay buuhi anigaa qaadan xaqeedana marin buu ka yidhi seeftii buu nebigu u dhiibay xaqa seeftaasi waxa weeyaan galka intood ka saarto ku celin maysid buu nebigu ka yidhi gal kuma noqonaysa khalaas waad ku dagaalgali ru'uustaa mushrikiintaad ku jaraysaa zubayr binu cawaam oo nebiga inaabtigii ahaa oo 10 jannada loo bishaareeyeyna ka mid ah oo raganimadiisana siirada iyo taariikhdu ay sheegtay ayaa halkaa istaago yar cadhoodo wuxuu yidhi anuu nebiga inaabtigiiya oo u fiiqay zubayr mar keliya abu dujaanana xagganuu gacanta ka taagay zubayrna xaggaa buu ka fiiqay nebigu zubayr uu arkayaa layidhi laakiin seeftii nebigu abu dujaan uu u dhiibay markaa buu zubayr wuxuu yidhi waxaan is idhi nebigu kolley ninka oqoon iyo basiiro uu arkaayo wax ugu dhiibee bal ha eegtid
abu dujaana mara cas buu soo qaato madaxa ku xidhay baa la yidhi waa dagaalkii baa socda deedna markaasuu sii xaragooday dagaal baa loo socdaa maaha rasaas wax laysku aayo la soco waa seef wax lagu dagaalamayo dhiiggaa daadanaya isagoo u jeeda uuna sii xaragoonayaa rag saxaabada ka mid a markiiba nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuulallah ninkii abu dujaane seefta u dhiibtay wuxuu sameeyey ma maqashay markaasuu yidhi maya sidii mutakabbiriintu u socdaa baa lagu yidhi dadka kibirka badan leh sida u soconayeen buu u socdaa baa lagu yidhi markaa buu nebigu yidhi socodka abu dujaana uu u socday dhaqaaqa uu dhaqaaqay ilaahay waa necab yahay laakiin meelahana lagu jecel yahay buu rasuulku yidhi hadalkaa ma fahamteen yaa dhallinyaro waxba dhinacaha xiiran haddaad xaragoon waxaad ku xaragoon lahayd sunnihii nebigaaga calayhi salaatu wasalaam haddaad cid ku dayan waxaad ku dayan lahayd saxaabadii rasuulkaad ku dayan lahayd diin baa loo xaragoonayey diin baa dhaqaalaha lagu bixinayey diin baa dhiigga loo daadinayey diin bay xoogooga u isticmaalayeen raaxadoodii iyo quruxdooda intay ka yimaadaan ayay doorteen inay ku noolaadaan mujaahado iyo tacab si diintu u kacdo iyakuna adduunka ay hadafkooga u gaadhaan ay u dhintaan mayna dhiman raggaasi way nool yihiin ma dhiman way nool yihiin dad baa nool maanta laakiin dhinsan dad baa nool oo inay nool yihiin baa la moodayaa laakiin way dhinsan yihiin ragna inay dhinteen baa la moodayaa laakiin ma dhimane way nool yihiin ogow siiradoodii baa nool oo hadyigoogii baa nool oo taariikhdoodii baa nool oo marka taariikhdooda lagaaga sheekeeyaba iimaankaagaa kugu ziyaadaya iyaga waayo ikhlaas waxay garteen inay ilaahay dartii u nool yihiin inay ilaahay dartii u dhimanayaan in waxay haystaan ilaahay u siiyey inay diinta ilaahay ku bixiyaan hadday noolaayeen waxay u fahmeen inay diin u noolaadaan hadday dhimanayaan inay diin u dhintaan ba iyaga ku talagaleen zaman walba markaa rag baa adduunkan imanaya soo maahin de zamankan markaa waa zamankee waa zamankee waa zamankeenii dhahada de zamankan waa zamankee maxaa markaa diyaar u nahay bay kula tahay kuma odhanaya zamankan waa zamankaygii oo qaybtaydaan diinta ka qaadanaya kuma odhanaya in yar wakti yar dadaal wakti yar 6 sano ayuu yidhi sacad binu mucaad ayuu nabiga ag joogay maqaamku ku gaarana eeg u fiirso geeridiisii dhimashadiisii carshiga raxmaanka u dhaqaaqay baa la yidhi waa 6 sano oo keliya abaa hurayre muddo yaroo intaa ku dhow ayuu isaguna nebiga ag joogay laakiin waa muddo intee leeg wixii uu hayay oo dhan buu isticdaad oo dhan buu dhiibay waxa uu ku reebay ilaahay cilmi ilaa qiyaamaha la munaafacsanayo can abi hurayrata la leeyahay a'immatu haadihi alumma oo a'immadii ummaddanna hee muddo yar bay adduunyada ku noolaayeen cilmi bada bay ummadda uga tegeen cilmi bada oo ilaa yoomina haada kutubtay sanifeen qaarkood aan la qorin iska noolow iska buko iska dhimo maaha maqsuudku sidaas sidaa xoolaha waa nolosha xayawaanka noloshaas inaad cuntaa ood cabtaa ood seexataa oo meelaha intood fadhiisato aad ka qaylqaylidaa ood gabowdaa ood bukootaa ood iska dhimataa bilaa hadaf waa nolosha xayawaanka muslimka hadafkiisu maaha sidaas muslimku waa inuu noqdaa qof adduunkan wax ku soo biirinaya wax ku biiri dana adduunyada adigu ka teg khayr ku beer khayr ku soo biiri adduunyada hidaayadda sabab u noqo islaax adduunyada ku soo ziyaadi khayr ummaddu kaa manacafsato ilaa qiyaamaha lagu hadal hayo oo ummaddu kugu soo ducayso ka shaqee addaalu cala alkhayri ka faacilihi ninka dadka khayrka tusa buu nebigu yidhi waa sidii nin khayrkii sameeyey buu rasuulku yidhi dariiqu ma xidhna dariiqu waa furan yahay maanta dariiqa almujaahada maaha dacwaddan maaha waxay ku socoto sidaa innaku aad u haysataan ijtimaaca la qabtay dad baa ka soo qayb galay bayaanaa la dhegaystay aqalada lagu kala noqday
may camalkan waa mujaahado waxaan u malaynayaa oon yaqiinsanahay kulligeen markaska inoo dhisana intaa leeg iyo majmaca maanta halkaa masjidka hareerihiisa fadhiya dhegaysanaya waxaa ku raaxaysanaynaa waa maxay waa tadxiya rag hore ay galeen tadxiyaad rag inaga horreeyey ay bixiyeen ayaa ina soo jido halkaa ina keena ugu marka tadxiyaad isku tegay ayaa ummadda ku dhismaysaa buuri sheekh cabdulwahaab najmac atadxiyaat wanajmac salaaxiyaat alumma nebigu calayhi salaatu wasalaam sifaadkii saxaabada uu kulmiyey tadxiyaadkoogii kala duwanaana uu kulmiyey raganimadii khaalid ibn alwaliid iyo daahiyadii camar bnu caas iyo raxmaddii abibakr asidiiq iyo shiddadii abibakr iyo shiddadii cusmaan iyo xishoodkii cusmaan binu cafaan iyo sakaawadii cabdiraxmaan bin cawf iyo zuhdigii abu dar iyo xifdigii abaa hurayra iyo cilmigii mucaad binu jabal iyo fiqigii ibnu cabbaas iyo raganimadii qacqaac atacrifuuna man huwa qacqaac salaaxiyaadkaa buu nebigu jamciyey deedna markaa buu nebigu ummad dhisay innakana maanta raganimadaa way nagu baahsan tahay qaarkeen waxaa laga yaabaa abubakar inay shabbahaan qaar cumar inay shabbahaan qaar khaalid inay shabbahaan qaar cuhmaan inay shabbahaan qaar cabdiraxmaan inay shabbahaan qaar abaa hurayra inay shabbahaan laakiin sifaadkaasi way aasan tahay maanta لا إله إلا الله الله sifaadkaas baahsan ayay yidhahdeen culammadu juhdigan dacwadda waxaan uga dan leenahay salaaxiyaadka ummadda ilaahay uu ku kala abuuray ee meelo kala duwan uu nin walba la fadhiyo ayaan kulminaynaa deedna markaabaa ilaahay hidaayadda faysalayn hidaayadda hadduu ilaahay faysaleeyo ma taqaanaa wax dhacaya dadku baatil aqbali maayaan xaqa iska soo doonanayn haddii toolay sheekh cabdulwahaab wuxuu yidhi allah u naxariistee madaxdu hadday isku dayaan shacabka inay hor joogsadaan ma hor joogsan karayaan waayo laana ilaahay hidaayaddii buu faysaleeyey ghulaam yarkii yaraayo ghulaamka boqorkii markuu ku yidhi haddaad rabta inaad idishid aniga halkaa igu xidh deedna sahamka iyo kanaanadayda igu dil markaad igu ganaysa keliya ii dheh bismi illaahi rabbi alghulaam ku gan waa kaa dhimanaya markaa sidii buu boqorku u yeelay uu dhintay kii yaraa hidaayaddii baa ilaahay faysaleeyey dadkii maxay dhaheen waar dadkii maxay yidhahdeen aamanaa birabbi alghulaam waayo ilaahay hidaayaddii isagaa haya markaas laakiin tadxiyaadkii maadaama maanta ay kala bahsan tahay oo nin walba raganimadiisii iyo salaaxiyaddiisii meel gaara uu la fadhiyo ummadda markaa cadowgaa ka faa'iidaysanaya markaa natuub ilaahay aan usoo noqonno aan toobadkeenno oo dadaalkan mar labaad tallaabadana hore han u qaadno waxaa adduunyada ka dhacdhacayaad maqlaysaan ee la sheegsheegayo ilaahay eegi maaya waxaa dadka ducaadda niyaddoodaa ilaahay eegaa bay culimmadu yidhahdeen ninka daaciga jamaacadda isku fikirka isku hadafka hadday qalbigooga fikirkooga tadxiyadooda hadday mideeyaan waxay iyaku doonaan mahayna wax kale adduunka ka socon maayo waa sunnada ilaahay dee insha allah dhahada inaan cimrigeenna caqligeenna xooggeenna raganimadeenna inaan dadaalkaa ku midayna ayaa u diyaara sidaa aad u dhegaysanayseen eed u fadhideen ha kicina ha hadlina haddaad ducaa doonaysaan insha allah dhahada walaalayaal dhammaanteen inaan baxno dar ilaahay u baxno ma niyeysanin allah idinka aqbalo dadka baxaya 4 bilood ilaahay darti 4 bilood naftiisa iyo maalkiisa bixinaya ha istaagaan ama ha qornaado ama mantiqada ka socdo ama muqdisho ha ahaado meeshuu doona ha ahaado
جماعات كهرو سعودي كوا عاوك باللابية دمان دتك ودوا تشكيل عاو وحن ربنا دمان دتك أفر بلود ديار كهاي استاجان أفر بلود إذا الله عدي ديار أفر بلود استاجان ما شاء الله أفر بلود دتك ديار كهاي استاجان نبتي زمان في سوق حياة وحاول